maanta wax ku baxsato ilaaha aasiyey waa tuulayaasha kamid ah baahidaadu saasay u badan tahay hadda balacdaan ka nimiday masaajidka wii dhexdiisa 500 laguna wareejiyey kamid tahay intaanu wixii ka dhimanne waa sii gudbi doonaa insha allahu tacaala marka ka faa'iidaysi wacan cid oo ka xayiranoo fursadaas aysan baaqo ahayn malaha cid kasta ka soo qaybgeli karto dal iyo dibad waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan gargaarkaas ninba inta uu ka kari karo degmada dadka ku nool oo waxaystaan xataa tuulada cidii waxaysato ayada nafteeda nimbow naftaada waay beri qiyaama ayadaa qof oo maninki waraabiya maalinta qiyaama ayaa laga waraabiyaa jannada salsabiilkeeda laga waraabiyaa marka جزاكم الله خيرا وهذا نوع بسود قدوميات ولada mareeray Abdullahi Qaasim oo u taagan markastaba haddaan imaado inuu qaybta asagoo u taagan iyo madaalo uu ka yahay jazakallahu khayr kana soo dhaw alhamdulillah ilaah ma iskale oo maanta nasoo gaarsiiyeen dadka jaaliyada oo soo wakiishteen guddiga awaaraha oo balcad loo saaray Sheekh Abbas oo weli gacantiisa soo gaaray asagana nasoo gaarsiiyey maanta kaligeedna kow uma aha waa 2 iyo 3 inta uu nasoo gaarsiinayo waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah oo sheekana waxa lagu soo dhiibay ay ku mahadsan yihiin xaleeleeyahay dadka ooman hadaa la waraabiyo adigana qaabka jannada ilaahay ka waraabiyaan leenahay marka waxa leeyahay xadiis oo waxa jiro oo dhahayo gabar zaaniyad ayaa ay ooman oo ceelka qofka keeda wax ay soo bixisay ayaa janno ku heshay marka bini aadanka hadee oo dad muslimiin ah oo ooman biyo la siiyo walaa darajadaas darajo ka weyn in la helayo ay nala tahay ilaahay xaqiisana ilaahay niga waraabiyo sida muslimiinta u waraabiseen ilaahay niga waraabiyo xoodka jannadana Allah niga waraabiyo waxaa idin leenahay waa mahadsantihiin mahad ku Allah iskala mahad labaad idinka iskala mahad saddexaadna sheekhi waxaan u soo dhiibteen inuu soo gaarsiiyo umahdiina بالله توفيق